hayo arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta kusoo dhawaada muuqaalkeenii labaad ee ku saabsanaa cashiro 3 ah oo aan ku sharxayno sida literature review-ga loo qoro. Videogii hore haddaa xasuusataan waxaan ku sharxnay conceptiska muhiimka u ah inaad literature review qorto. Videogan labaad iyo midka saddexaadba waxaan gacanta la galaynaa qorista literature review-ga. Marka waxaan kala qaadaynaa 2 qayb. Videogan labaad wuxuu targetkeenu yahay ardayda ku cusub literature review inay qoraan, ardayda challengeska u arka in literature la qoro oo dhib badan uu ka haysto, dadka waqtiga uu haayo. 3daas qof haddii aad ka mid tahay waxaa maanta aan halkan ku baranaynaa hal tool oo fududeyn karo literature review-ga. Speedka wax ku qoraysana oo aad u sahlanaan karo. Videoga saddexaadse waxaan ku sharxi doonaa literatureka sida ay u qorayaan dadka targetkoodu yahay in journalistka internationalka weliba journalistka qualitygooda aad u sareeyo inay wax ku daawacaan. Marka maanta qaybtan waxaan ku baranaynaa tooliska muhiimku ah inay ardaydu fahmaan. Markaad toolkan si fiican u fahanto oo aad practice garayso oo 4-5 mar literature ku qorto kadib waad u gudbi kartaa videoga saddexaad aan soo duubi doono. laakiin waxaa muhiim ah inaad midkan barato si aad comfortable kuula noqdo in literature review la qoro. Maxaa marka rabnaa inaan maanta barano? Maanta waxaan rabnaa inaan barano 3 shay. 3 shay. Kow waxaan rabnaa inaan barano markaa rabtid literature review-gaada inaad organize garayso. Techniques-ka isticmaali karto. Maxaa waaye qaababku waa isticmaali karto. Qodobka labaad oo aan rabno inaan barano sina wax waaye haddii aad rabto inaad qorto literature review processka aad marayso oo inaad fahanto la rabo waa nooce. Midka saddexaadna waa toolka aan maanta cashirkan u duubayno. Toolkan waxaan ku kalsoonahay haddaa fahanto in literature review dambe aadan u arki doonin challenge. Waa basic oo haddii aad thesis qorayso iyo haddii waqti uu ku hayo tool in la isticmaalo aad u fiican tahay waaye. Haddiise aad advanced techniques ka rabto videoga saddexaad aan ku duubaynaa. Laakiin ardayda waxaan rabnaa inaan midkan maanta isla barano. Waxaan rabnaa inaan isla barano annotated bibliography. Toolkan waqti badan ku bixi, ku practice garay ilaa iyo 4 literature review oo 4 topic ah qor ama 5 gaarsii. Haddaa si fiican u barato toolkan sida loo isticmaalo waxaan ku kalsoonahay inaad wax badan iska bedeli doono xirfadahaada dhanka literature review qoristooda. Okay. aan marka gudub galno. Markaa rabtid inaad techniques-ka loo organize gareeyo waxaa rabtaa literature review qaybo inaad u kala qayb normally qaybo in loo kala qaybiyo. Markii chapter 2 oo literature review aad gudbiso qaybo waa inuu ka koobnaadaa soo ma? Qaybahaas waxay u kala bixi karaan noocyadan. Tusaale ahaan midka koowaad waa chronological. Chronological-kan muxuu kuu sahlaa? Wuxuu sahlaa articleska aad literature review ka qorayso mid kasta intaadan qorin waxaa fiirinay date-ka la qoray iyo waqtigii la qoray. Kadib siday u kala horeeyaan waxaad ugu samaynaysaa studies-ka review. Mid waa taas. Midna waxa waaye topic-gaa rabtaa inaad wax ka qorto. Topic-gan hadduu soo sameeyo isbedelo advanced-kaas aad rabtaa inaad ku salaysid literature review-gaada. U fiirsiyaa. Waxaan rabnaa tusaale ahaan telecommunication-ka Soomaaliya inaan wax ka qorno. Telecommunication sector-ka Soomaaliya markaan wax ka qorayno waxaan dhihi karnaa xilligii uu soo bilaabay siduu ahaa inta article waqtigaas la qoray aan inta meel iskugu geyno aan review ku sameynaynaa. Kadib horumarka ay samaysay marka ku xiga nuuco ahaa articleska xilligaas la qoraasina waa ku xijinaynaa. Marka ugu dambeysa hadda uu casriga nooc yahay oo mobile paymentska waxaan zaadka ama EVC-ga ay leeyihiin ayagana xilligan la joogo articleska la qoray oo ku saabsan topic-gaas waa review gareynaynaa. Marka literature-keena qaabkaas u dhisno waxay ku salaysan yahay maxaa waaye? Waa advancement waaye. Mujeedaa? Waxaa kaloo dhici karto geographicalna literature review ku salaysan yahay. qaybihiisa inay geographically u salaysan yihiin.
tusaale ahaan waxaa rabtaa inaad wax ka qorto federaaleynta Soomaaliya. Federaaleynta Soomaaliya wuxuu ku salayn kartaa region sidee looga apply gareeyay Puntland, sidee looga apply gareeyay Galmudug, sidee looga apply gareeyay Koonfur Galbeed. Mujida qaybahan markaa saas u kala qaybiso articles geographically marka cilmi baaris ka sameeyeen qaybahaas inta raadiso mid kasta samir ku sameynaya. Markaas waxaa leedahay federal system of Somalia in that region. Or waxaa dhihi kartaa oo kale tusaale ahaan inaad kala qaadiso North iyo South Somalia kadibna sidaas ku salayso literature review. That is one way. Like the most popular oo kuwa ugu fiican dadka ay dhahaan inkastoo topic ay ku xiran tahay, laakiin markii laga hadlayo social science-ka oo business-ka iyo markii laga hadlayo IT iyo major concepts-ka target-ka inta badan laga dhigtaa this one. Kanna waa midka hadda marka ani hataa thesis-kayga aan ku saleeyay major concept. Major concept maxaa laga wadaa wax yar waayo intusaa marka si aad si fiican kan ugu fahanto topic-gayga yaa rabaa inaa wax yar intuso. Haddaa xasuusataan aniga topic-aan qabay sooma topic-gaygu wuxuu ahaa waxaan dhahay digital marketing aan wax ka qoraa. Digital marketing marka targetkaygu wuxuu ahaa consumer trust number 1 iyo waxaan kaloo rabay online payment option number 2 saameynta ay ku leeyihiin in la isticmaalo online shopping Africa Soomaaliya waa aan targetkaygu yahay. Marka saameynta ay labadan factor ku leeyihiin online shoppingka Africa aan baarayo Soomaha modelka marka aan ku apply gareynayo kuwan waxa waaye modelkan waa hoostan nagey hoostan tag yes this is our model. Ani marka modelkay waa kana fiiriya waxaa muhiim ah markaan dhahay hidayat waxaan dhahay literature review-gaada waxaa ku salay kartaa model. Okay this is the model kan soo ma dhihin major concept yaa ku salay kartaa. Major concept-ga waxaan ka wadnaa kan hadda aan sheegayno modelkan major concept-giisa maxaa waaye ani waxaan target gareynayaa saameynta consumer trust iyo online payment option ay ku leeyihiin ka warqabka online shopping iyo fikirka dadku ay ka qabaan perception-kooda online shopping. Labadan marka saameyn ma ku leeyihiin awareness iyo perception. Kadibna waxaan rabnaa marka dadka guud ahaan sidee rabaa inay intention-kooda waa sidee markii internet wax laga gadanayo. Marka literature review-ga qaabkan u dhisaa waxaan u qaybinaa 5 qayb 1 2 3 4 5. qaybta koowaad consumer trust aan kaga hadlaa articles ku saabsan oo e-commerce ma ahan consumer trust oo everything ma consumer trust e-commerce kadib online payment option kadib awareness perception kadibna intention. That is waa markii aad ku salaysid kan major concepts-ka wajida waa marka techniques loo organize garay marka qaabkaas fahan mar walba nooc artid aad there are these techniques or if you want to organize your literature review marka process-kee u maray marka aragtid inaad literature review qortid 4 step ugu muhiimsan. Haddaa xasuustaan videoyo horena ka dubnay topics loo doortaa kadibna articles loo soo aruuriyaa oo topicaas ku saabsan. That is the first step. Collect articles ku saabsan to mawduucaada soo download garay. Maxaa waa step-ka labaad? Step-ka labaad waxa waaye analyze maxaa ka badnaa article-ka kulli aad soo dejis hadda mid kasta analyze garay. waxaa fiirisaa abstractigooda introductionka findingskooda discussion conclusionkooda exactly ma yihiin kuwa la xiriira waxa aad baarayso. haddii haa ay tahay articleskaas gees dhig hadday ma yihiin iska tuur you don't need mujida the first step soo aruuriyaan dhahan the second step analyze garay kuwa kula xiriiran reeb kuwa aan kula xiriirinna iska dhaaf. The third step waxa waaye arrange garay. What do we mean by arrangement of the articles? Arrangement waxaan ka wadnaa soo hadda maynaan dhihin anaga model haysanaa articleska ka hadlaya consumer trust online payment these 5 factors arabnaa ma dhihino 5tan
aan u arrange garaynaynaa. We arrange according to these 5 variables. Articleska kan la xiriirana qaybtaasaan dhigaynaa, kuwana qaybtaana hoos dhigi doonaa, kuwa ka hadlaya awarenesska sidoo kale, perception sidoo kale, propensity sidoo kale. Marka articleskeena we arrange according to anaga variableskeena. Stepka ugu dambeeya maxaa waa inaad summarize garaysaa articleska dhan oo hadda arrange garaysay oo aad variable ama conceptska u hoos dhignay. Sidee loo summarize garaynaa? waa midda aan maanta baranayno. Articleska literature review aad ka qori rabtid sidee u summarize garaynay? waa topigeena maanta waxaan kaga hadlayaa. Articleska sida loo summarize gareeyo waxaa jira different ways. qof kastana midka u fudud iyo midka uu shakhsiyan jecel yahay wuu aadi karaa. anaga like maanta waxaan baranaynaa wax loo yaqaano annotated bibliography. Annotated bibliography maxaa laga wadaa? waa tool loo isticmaalo markaa rabtid inaad note ka qortid wax walbo, book, article, website article, journal, waxay rabta ha noqdaan. hadda tusaale ahaan conceptskan waa this is the concept. tusaale ahaan this is the annotated bibliography. yes, si aad u fahantid this annotated, remove the n here. this n remove garay waxaa kusoo horaaya annotated bibliography. waxaan sharxi rabnayaa waxaan maxay yihiin horta annotated bibliography. kadib remove these 3. waxaa ku haraya maxaa waaye a nota. A nota is just a note. A note waxaa ka samaysaa bibliography. Bibliography maxaa ka rabnaa? Bibli ereyga kadib intaan naga reeb. You delete this one. Note ka sameey bibli. Bibli maxaa waaye? waa ereyga Latin book ahaan. Latinka markaa book dhahaysid you will say bibli. Therefore waxaan note ka sameynaynaa bibli. waxaan note ka sameynaynaa book. bookga marka wixii ugu horeey waaye soo maaha oo binaadamku aqriyo. kadib hadda waa soo ifbaxay oo newspapers, academic articles, website articles, news, everything ay imaad. marka note ka qor everything. Annotated bibliography waxaa laga wadaa tool la isticmaalo markaa rabtid inaad wax ka qortid everything. misal fahanashaas marka waa this is the first step. marka article aqri rabtid oo literature review qori rabtid, the first step waxaa la inaa isticmaashid toolkan la dhahay annotated bibliography. Annotated bibliography wuxuu u kala bixi karaa inaa academically u isticmaashid iyo inaa si caadi personal u isticmaashid. anaga midka aan baranayno maanta marka waxa waaye sidee literature review u qoray, sidee academically u isticmaalaysaa toolkan loo yaqaano annotated bibliography. Go. Academically markaa u isticmaashid waxyaabaha lagu garto waxa waaye number 1 it's more structured. waa arki doonaa hadda gacanteenu ku sameynayna structure fiican oo yeelana oo aad u fiican. midda kale it's methodological. hadda Soomaalian dhihin markaan literature ka qorayno qaababka aan mari karno waa ama geographically ama topic ahaan concepts inaan uga hadalno so waxaas ma dhihin. marka it's methodical waaye. midda kale steps aa raacay method waaye 1 2 3. hadda stepkas qalado annotated bibliography waa qaladay. midda saddexaadna it's more detail. aad u faahfaahsan yahay haddaan arki doonaa. maxaa lagaa rabaa marka haddaa rabtid inaa annotated bibliography AB haddaa rabtid inaad baratid annotated bibliography maxaa lagaa rabaa? kow, annotated bibliography-gaada waa inuu ka koobnaadaa 3 qayb. waa inuu jawaab u helaa 3dan su'aal. kow, what have you found? internetka markaad baartay articleska maxaa soo heshay? article kasta descriptionkiisa laga wadaa summary. kadib intee ka soo heshay? articles kasta waa inaad cite garaysaa. that is the most important thing. qodobka saddexaad waxa waaye articlekan aad summary garaynayso oo aad cite garaynayso faa'iidada uu ku leeyahay waa inaad sheegtaa why articlekan usoo qaaday. that is the requirements. haddaad 3daas jawaab u heshid waa annotated bibliography-ga waa ku guulaysatay. ujeedka loo isticmaala maxaa waaye annotated bibliography waa boobsiinaynaa qaybtan ya si aan u bilaawno qorista. haddii marka speedkayga kula dheeraado youtube-ka boos ama playbacka speedkiis yare kadib codkaygu sidan ayuu noqon doonaa. ma fahanteen? okay, waa maxay marka purpose? purpose-ka waxa waaye waa keed
articleska dhan aan ku keedsanayno. It's a database. Keedkaas hadhow markaan literatureka qorayno si aan u bilaawno oo meeshaas ugu soo baxsano articleska dhan aynan ugu naqan. Number 2, it's a diary. maxaa waaye diary? waa wixii aa akrisay aad kadib codkaada ku darsanaysaa. marka waana waxa ugu muhiimsan literatureka in la helo aa barato inaad qoristooda dhow. ugu dambeyna it's an accelerator sidaa haddaba idin tusi doono. haddaad toolkan baratid, your writing will become faster and easier. si fiican wax u qore waana sahlanaan doontaa. marka toolkan waa toolska literature markaan baranayaan ka bilaabo barashadiisa waana wax badan ii save gareeyay. okay, toolkan marka oo annotated bibliography meeq qayb uu ka kooban yahay? 3 qayb. Step 1, citation. waa inaa articleka citationkiis qortaa. Step 2, waa inaa summary article kasta u samaysaa. summarygaasna waa inaa adiga luqadaada ay ahaada. articleka akhrinayna haddaan ba idin tusaa kadibna aa luqadaada u qortid. qodobka 3aad waa inaa muhiimadda sourcigaas aa usoo qaaday aa sheegtaa. that is wixii sharxaad intaas anoo way qaada. hadda waxaan bilaabaynaa marka akhriska iyo qorista. okay, waxaana geysaa topicgeena. topicgeena waa isla fahansanaa soo maha. this is our model, this is our topic. waxaan ka hadli rabno waxa waa anaga 5 arrin. 5 arrin waxaan rabnaa in articles aan haysanaa. articles la soo dejiyaa videoyaan ka dubnaa. hadda waxaas ma sharxayo. waxaan ka hadlaa these are the articles kayga inta igu keedsan yihiin. Mendeley se loo isticmaalaa sina video kale ka dubnay. ku noqo soo fiirso. hadda waxaan rabnaa bis articlekan sen uu akrinaa annotated bibliography uu sameynaa kadibna literature review uu qoraa. this is waxaan videogan ugu hadlayno. articleka waxaa sameynaya markaad inaad annotated bibliography ka samaysid. first step citation. soo ma dhihin anaga hadday tahay requirementska step 1 is citation. citationka maxaa Mendeley markaad joogtid videogii horaan ku baranay sidee citationkan aan u qaadaa. control shift c aan dhahaa. control shift c markaan dhaho waa wadaa citationkii waa wadaa. hadda waxaan bilaaba marka articlekii citationkiisa waa kana. articleka citationkiisa waa kana. haddaa rabtid inaa idin tusana delete deh control v deh meeshan. wait, control shift c kadibna u noqo control v bis dc. meesha maxaa u jeedaa waa citationkii aan soo dhaweeyo si aad si fiican ugu aragtaan. waa kana. step 1 maxaan dhahnay citation. citation see loo sameeyaa waa Mendeley aan kusoo baranay. marka annotated bibliography samaynaysa articleka aa akhri rabtid ha akhrin ha ku bilaabin adoon citationkiisa meeshan haddaba kusoo xareynin. jahwareer badan uu hadhow ku badbaadin doonaa. that is the first step. what is the second step? akhriska waa. markaa akhrinaysid waxaan articleka ka akhrinaynaa literature review markuu yahay 3 qayb. isla fahanayaa 3 qayb. qaybta koowaad waxaan ka akhrinaynaa waxa loo yaqaano abstract. qaybta labaad waxaan ka akhrinaynaa introductionka. qaybta saddexaadna waxaan akhrinaynaa discussion iyo conclusionka. 3daas qayb haddaan ka akhrino articleka literature review waa ka samayn karnaa wax kale uma baahnin. okay, hadda marka articlekan citationkiisa waa ku guuleysanay step 1. step 2 maxaa waaye articleka summary ku samee adoo isticmaalaysid luqadaada. okay, articlekan gamer. articlekan waxaan dhahaynaa muxuu ka hadlaa horta koo. waxaan aadaynaa abstract soo ma dhihin step 1 abstract waa kana. okay, aan idin soo dhaweeyo si u fahantaan. okay, this article the findings of survey report gareena surveygaasoo lagu baarayay the impact of professionals saameynta ku leedahay professionals selected social demographic factors. saameynta ay ku leedahay arrimaha social demographica marka laga hadlayo dadka professionalska ah. saameyn noocee ayay ku leedahay their online purchasing behavior. internetka inay wax ka gataan dabeecadooda. muhiimadda waxaa articlekan wuxuu ka hadlaa dadka shaqeeyo demographic factorskooda iyadoo loo fiirinayo inay male yihiin female yihiin incomekooda iyadoo la fiirinayo saameyn ma ku leedahay inay internetka wax ka gataan. articlekan waxaasuu ka hadlaa. okay, articlekan wuxuu isticmaalay face to face approach interview samey. okay, articlekan wuxuu focus gareeyay gender
age, education level, income, iyo internet usage, daily internet usage oo dadka internetka isticmaala. Halahaas waa fahmay. Articlekan 5 hypothesis ay tijaabiyeen markay analyze garaynayeenna waxay isticmaaleen chi-square. Halahaas note soo qabso samayso. Waa fahansanaa ma professionals dadka ah ayadoo la fiirinaya social demographicooda gaar ahaan education, gender, agekooda, incomekooda iyo daily internet usage. Saameyn ma ku leedahay inay internetka wax ka gataan. That is wax la baarayo waa. Okay, halahaas waa isla fahmay. That is the abstract. Articlekan manala xiriiraa waa marka su-aasha. Haa, wuu nala xiriiraa. Sababtoo anaga waxaan ka hadlaynaa waxaa ahaaba dadka saameynta dadka saameyn ma ku leeyahay trustigooda iyo waxaan kaloo dhahan qodob kalood muxuu noo ahaa iyo payment optionskooda iyo waxyaabahaas. Marka maadaama aan u socono anaga purchasing behavior meeshaan wuu naga soo galin doonaa. Kadibna perceptionkooda iyo waxyaabahan. Articlekan marka waa nala xiriiraa oo literature review ku samayn karnaa. Abstract waa fahanay. Introductionka waa kana. Introductionka marka waxaa loo akhriyaa bis inaad background information ku fahantid. Laakiin markaa rabtid informationka aad literature ku daraysid mostly waxaa laga soo qaadaa qaybtan discussionka iyo conclusionka. Iyadaa marka hadda aadayna. Okay, let us go. Okay. Discussion. Step 1. Waxaa lagu dhahay the results of this study reveal that professionals' gender is not significantly related to the use of online purchasing behavior. Articlekan wuxuu soo saaray professionalska genderkooda dadka shaqeeya waxa ay yihiin dumar iyo ragba saameyn kuma laha inay internet wax ka iibsadaan. Wonderful. That is the first findings of this paper. Maxaa sameynaya waa highlight garaynaysaa. Pointan waa point muhiim ah. Sababtoo ah wuxuu meeshan ku sheegay haddaa u fiirsatid articles hore ay u qoreen on Tio ninkan lahay Lim 2004 ay qoreen iyo teamkan kale Huang lahay 2006 ay qoreen waxay soo saareen wax ka duwan waxaan dadkan soo saareen. Dadkan waxay dhaheen genderkaada haddaa qof shaqeeya tahay genderkaada saameyn kuma laha inaa internetka wax ka iibsato. Laakiin dadkan waxay soo saareen wuu ku leeyahay. Meeshan waxaa ka jira conflict. Muhiimadda marka waxa waaye why conflictan uu jiraa. Haddaa si akhrisid waxaa fahmi marka a plausible explanation hal sababo lagu sheegi karo sababtan contradictory natiijada ay u tahay waxa waaye there is a cultural differences. Studygan loo isticmaalay in cilmi baaris lagu sameeyo way ka duwan yihiin dadkii loo sameeyay cilmi baaristii hore. Dadkan studygan haddaa si fiican u sii akhrisid waxaa fahmaya waa dad Turkiya lagu sameeyay. Therefore Turkiga wuu ka duwan yahay wadamadaas kale. Number 1 dhaqan ahaan diin ahaan wax way kala duwan yihiin. Marka meeshan adiga muhiimadda waxa waaye discussion saasa u akhrinay. Point kasta waa note garaynay. Hadda hal point soo note garaynay. Pointiga labaad aan fiirino. In this study, test results indicated that professionals' age affects the level of online purchasing. Cilmi baaristan waxay ogaatay dadka professionalska sanadkoodu agekoodu wuxuu saameynaa inay internet wax ka gataan inaysan wax ka gadanin. You see? Okay, maxaa sameynaynaa? We highlight again. Let us highlight. Second point. Sababta waa kadib waa fiirinay dad hore wax u sameeyay kaga hadlayn iyo tooda isla bardhigan kadib waa aqrinay. Muhiimadda waxaa marka point kasta saasa u sameynay. Marka saas u samaysid maskaxdaada ku hay erayadan ha koobiyeenin. Pointiga fahan kadib meeshaada u noqo oo hadda aan dhahnay step 1 wuxuu annotation step labaad waxa hadda waxaan sameynaynaa summary. Summary waxa waa marka aan idin soo dhaweeyo. Step 1 waxaa dhahee qoraaga tag waxaa leedahay Akman iyo Brehan 2014 dadkan labadan nin waxay baareen the social demographic factorieska dadka professionalska ah saameynta ay ku leeyahay inay internet wax ka gataan. Gaar ahaan waxay fiiriyaan waxyaabahan. Okay. Kadib face to face interview isticmaaleen waxyaabaha umaysan soo saareen waxa waaye hal mar isku qabto fiiriyaha meeshan waa qoray. Waxaan dhahay income iyo age educationka saameyn wuxuu ku leeyahay dadka professionalska inay internetka wax ka iibsadaan. Laakiin genderkooda wax saameyna kuma laha. Waa soo aragnimo hadda. Inta haddaa fiirsid copy paste maan soo sameyn. Waxaan qoray waxa waaye luqadeeda saan u fahmay aan qoray. Okay. This is the second step. The third step
summary citation waa sameynay, summaryna waa sameynay. Stepka saddexaad waxa waaye markaa rabtid inaad annotated bibliography samaysid, why sourcean muhiim kugu yahay u noqo marka. Waxaan dhahaynaa articlekan hadda makaa baarnay muxuu muhiim noogu yahay. Waxaan dhahaynaa fiiriya, cilmi baaristan waa muhiim sababtoo ah few studies conducted in the context of developed countries ay ka mid tahay. Waxay ka mid tahay cilmi baarista lagu sameeyey wadamada soo koraayo arrimahan e-commerce marka laga hadlayo. Wadankaasna waa Turkey. Wuxuu muhiim u yahay marka wadamadan developing countries-ka dhaqan ahaan, diin ahaan, economical waxa way ka duwan yihiin wadamada western-ka ah. Soo sax ma aha. Therefore, aniga muhiim ay tahay article-kan sababtoo ah waxaan ogaan doonaa waxa aan cilmi baaristan ka sameyn doono maadaama ay Africa tahay. Africa iyadana sidoo kale dhaqan ahaan waa suuragal waa inay ka duwanaan karto. waa one reason oo article-kan aan u qaatay. Stepka la tax waaye article-kan waxay qaadane constructiska. Construct maxaa la dhahaa? Construct waxaa la dhahaa variableska ka hadlaysid. Anaga hadda modelkeena social maaha. Article-kan waxaa ku jiro variable oo ah professionals. Inta badan literature-ka marka laga hadlaayana waxay xooga saaraan academicianska ama dadka citizenska caadiga sida e-commerce u isticmaalaan. Articleska ka hadla professionalska aad ay u yar yihiin. Therefore, article-kan muhiim u yahay. Wuxuu qaatay qodob kale oo muhiim ah. Professionalskana aniga hadda cilmi baaristeedu waa waxaan sameeyay waa Soomaaliya markaan ka hadlaa cilmi baaris waxaan ku sameeyay dadka academicianska, ardaydii iyo dadka shaqeeyo. Marka article-kan muhiim u yahay. Hadda misal faan marka sida loo sameeyo annotated bibliography. Annotated bibliography waxaan ku dhahay kow article-ka citation-kiisa qor. sida ugu fudud citation ku xali kartid waxa waa Mendeley inaad isticmaalkiisa baratid. Si Mendeley loo isticmaalaa video ka duubay hadaa u baahan tahay ku noqo ee fiirso. Stepka labaad maxaa waaye? Stepka la taxawaaye article-ka summary ku sameey. Summary markaa sameynaysid author-ka magaciisa kadibna date-ka. Author-ka magaciisa dhow waa kusoo hali kartaa waxaa dhihi kartaa hadda tusaale ahaan oo kale inta waxaan dhahay mujida meeshaan aan dhahay the study was face-to-face interview with professionals. Meeshaan waxaan dhihi karaa Ackman and Rehan used face-to-face method. Waa dhihi karaa meeshaan the study ka dhahay magacooda waa soo celi karaa. Marka muhiim maaha dhib ma laha. Waxaa muhiim ah date-ka ogow hal mar ka badan ha sheegin, hal mar kaliya kugu filan date-ka. Laakiin magacooda waa soo celi kartaa. That is the second step. Citation summary. Stepka saddexaad maxaa waaye? Article-ka value-ga uu ku leeyahay iyo sababta u qaadatay inaad ka hadashid. Iyadana waa baranay sida loo sameeyo. Article-ka inaad akhrisid muhiim ah si aad u fahantid muhiimadda aad ku leedahay. Halahaas waxaan rajeynayaa inaad isla fahanay. Hadda markaas sii wadno marka si aad si fiican u fahantaan hal article kalaan ku daraynaa example. Kadib meeshaan ku joojinaa. Example-ka labaad waxa waaye article-kan la dhahay comparative study of consumers readiness for internet shopping in two African emerging economies. Waxaa isbarbardhig lagu sameynaa cilmi baaris ku saabsan diyaar ahaanshaha dadka macaamiisha ah ee diyaar ku yihiin inay internetka wax ka iibsadaan iyadoo la fiirinayo labo wadan Afrikaan ah oo waa Nigeria iyo wadan kale waa arkayna marka iyo Ghana. Marka maxaa dhani marka article aqrinaysid oo literature review ku sameeyay rabtid stepka koowaad maxaa waaye? Waa ina aqrisaa maxaa waaye? Abstract. Yes. Stepka labaad maxaa waaye? Introduction si aad u heshid information. Introduction-ku waxa ka qoraysa literature maaha ee waa ina information background heshid. Stepka saddexaadna maxaa waaye? Waa ina aadaa discussion-ka iyo conclusion-ka. Discussion iyo conclusion-ku waa meesha ugu muhiimsan ee marka literature review qor rabtid. Information-ka qaada lahayd meesha ka helay. Marka abstract-ka waxa uu isticmaalay article-ka ma yahay midka saxda kugu ah oo waxa la xiriira. Introduction-kan waxa uu isticmaalay background inaad fahanto waxa laga hadlayo. Discussion conclusion-kan waxa uu qaadanaya wixii information oo literature-kaada geeyay literature review-ka. Halaas isla fahmay. Okay, hadda bilaabno. Article-kan wuxuu baraa factors that could either inhibit or facilitate consumers readiness for internet shopping in two highly influential countries in the African continent. Macaamiisha Afrikaanta inay diyaar u yihiin kale internetka inay wax ka iibsadaan marka la fiiriyo laba wadan Afrikaan aad muhiim u ah oo cilmi baaris lagu sameeyay. Factorieska saameynta ku leh. We have identified article-kan waxay isticmaashay 6 cogent factors. Factors meesha anaga hadda maxaa isticmaalay 5 ay waxay xoog saarayaan 6
waxa waaye tusaalahaan demographic variables idin tuso. Number 1 waa demographic variables ay isticmaalayaan. Number 2 waxay isticmaalayaan perceived level of distrust. waxay kaloo isticmaalayaan internet access availability saameyn mu leeyahay sina. waxay kaloo baarayaan the proliferation of dadkan. Yes, here I don't know why the computer is so difficult to navigate. Okay, site usage dadka inay isticmaalaan internetka fahankiisa. iyo qodobka ugu dambeeya oo ah muhiimad availability of internet iyo electricity hataa mujida. Okay, cilmibaaristan waxay helayeen found female gender compared to male gender in Ghana would most likely have a higher perception of level of distrust in internet shopping. dumarka jooga Ghana waxay fahankooda oo inay internetku distrust ku qabaan aad u sareeya marka loo fiiriyo male Ghana marka laga hadlayo. marka muhiim waxa waaye manal xiriiraha kadib introduction-ka aad information-ka background ahaan u fahan. step ugu dambeeya waxa waaye si aad u qortid literature view-gaada waxaa aadaysaa conclusion iyo discussion iyo feature research. conclusion maxaa marka step 1 meeshaan fiiri wuxuu dhahay consumers readies for internet shopping in the two African countries it presents opportunities for local retail. marka akhriska it takes time. haddaan idinkoo fiirsanaysiin videoga idin loo aqriyo oo wax walba idin tuso kastoo it takes time. marka muhiim waxa waaye idin tusaa maxaa natiijadii soo baxday. natiijadii soo baxday waxa waaye this one waa kana. kow waxaan sameeyey articlekii hadda aan akrinayay waxaan ku sameeyey annotated bibliography. step 1 waa baran muxuu ahaa citation. step 2 summary. summary waa kana Nebraska 2014 wuxuu explore gareysay 6dan arin cilmibaaris waxa lagu sameeyay wadankaas waxyaabaha ay baareen waxaa kamid ahaa waxaan cilmibaarista waxay kusoo gabagabooday san almuhiim waxa waaye mujida meeshaan waxaan xoog saaran waxa waaye article summary waaye. stepka ugu muhiimsan oo saddexaad waxa waaye kan ugu muhiimsan oo inaadan ka tagin la rabo waxa waaye article-ka way muhiim ku tahay. article-ka waxay muhiim u tahay waxay isbarbar dhigtay the experiences of consumers in 2 different countries. mujida very important waaye maxaa yeelay aniga waxaan baaraya waxa macaamiisha fahanka iyo kalsoonida ku qabaan e-shopping. sidoo kale article-ka waxay muhiim u tahay waxay isticmaashay variables kale iyadana. variables waxa kamid ah social media siday u isticmaalaan dadka dhalinyarta ah saameyn ma ku leedahay online shopping. waxaa kaloo article-kan muhiim u yahay variable kaloo muhiim ay qaadatay oo ah power supply availability. ani marka hadda internetka Soomaaliya ka sameeyna cilmibaaristana muhiim u yahay factor-kan hadhow dadku waxyaabaan inay saameyn ku yeeltaa iska soo gala. marka meeshaan halahan waa ku jooji karaa umaleynaa. this is annotated bibliography sida loo sameeyo. maxaa idinku caawin karaa marka haddaani waxaa idinku caawin karaa linkiyaa idin siinaa si aad practice badan u samaysa. linkigan iyo muuqaalkanba literature-ka qoray wuxuu ku salaysan yahay dhiirigeliyeyna professorkana wuxuu qoray uu sameeyey summary marka idin weynaysiyo wax yar isu. okay, these are the 5 steps of literature piece loo sameeyo. aan soo dhaweeyo marka linkigan description-kan kusoo share gareynaa fiirso raac stepska wax badan uu ka caawin doonaa. step 1 waxa waaye sidee summary articleska loogu soo baxayaa meeshaana ka baran kartaa raac stepska. kadib markaa summary ka soo bixisid articleska sidee order loogu sameeyaa. kadib articleska sidee body paragraph loogu qaybiyaa. kadib articleska sidee loo taabtaa si oo shape kulli isa ku raacaan. kadibna introduction iyo conclusion si loogu daraa si oo article-ka uu literature view kugu dhamaado. ani marka hadda stepka halihii aan dhameyn maxaa waaye waa annotated bibliography. su-aasha kale waxa waaye marka annotated bibliography samaysid maxaa ku xiga marka literature view maaha ilan kan waa this is annotated bibliography not literature view. maxaa sameynaya waxaa sameynaysaa articleska wixii citation dhan hal fol waxaa samaysaa hal documenti oo la dhahayo literature no references kadib kulligooda koobiyey. fiiriya waxaan sameynaa new document
waxaa la literature review article koowaad waa control v meeshaasaan dhigi inta waa ka jaraya la soco meeshaas wuu ka baxay articleka labaad taga waxaan sameynaa wixii reference ahay citation control x waa ka jar meeshi intaan geystay documentigan waxaan u sameeyey kaliya wixii references articles oo hadda aan ku sameeyey annotated bibliography kulli intaas kugu keenaa waa save gareynaa reference aan u bixinaa hadhow marka literature reviewgayga wixii article aan isticmaal dhan referencigooda waa haystaa qalad miiga imaan kara qof igu qabsan karan malaha waxaa u noqonaa marka articleska marka si fiican ila soc meesha ayaa articleska mid kasta waa aqrinaa waxaan fiirinaa marka waxaan summary aan ku sameeyey mid kasta qaybtee la xiriirtaa qaybihii hadayt anaga aan sheegnay where is our model is here shantan qayb aan u qaybinaa articleska la xiriiro consumer trust intaan dhigaa bast ku dhahaa fiiriya waxaan kasoo kobiyeynaa meesha annotated bibliography waxaan dhahaa kulli soo kobiyey articlekan waxay geysaa yee la xiriirtaa waxay la xiriirtaa qaybtii la xiriirtaa aan dhigaa tusaale reception la xiriirtaa tan intaan dhigay that's all article kale oo tagaa numberesa summary aan ku sameeyey articlekan qaybtii la xiriirtaa iyada haddaa akhrisid waxay la xiriirtaa propensity to shop online intaan dhigaa mujada fiiri literature review qaab Soomaaliyeed hadda u fiirsid waxyaabahan waa iska nadiifinay hadhow aad tiri kartaa dhib ma laha articleska literature-kayga qaab u qaadanoo hadda kulli articles markaa summary samaysid markasaana u dhigdhigaya meel kasta markaa dhigto waxaan hadda iskuma habeysno waxaa weli ku dhimanaa habaysid se habeene waxaa sameyne waxaa ku transition sentences ku daray topic sentences ku daray hadda waa idin tusaa marka articleska markaan dhameeyey aniga nidadeeda waxaan sameeyey 32 article kulligoodna waa kuwan this is my literature review mujida that is waa markaan dhameeyey waa haye iga xir markaa xirtid waxaa geynaa marka qayb ku xigto waxa waa articleska mid kasto naashnash ku dar hadda tii haddan tageena oo kale sideen loo naashnaashay waxa waaye okay where is the article it's here yes meeshan waa tusaalahaan yes akman iyo rahman mujida tusaalahaan articlekan waa akhriyey kadib waxaan dhahay jumladana ila habboonaatay inaa topic sentence ugu dhigo the impact of demographic factors on the perception of online shopping is varied between citizens, academicians, and professionals. adiga marka midaan la imaanaysid wax qalad iyo wax sax lahayn ma jiro meeshan it's all about sa u fahantid articleska akhrisay meesha codkan marka adaa iska leh this is your voice kuwana waa sourcing inspire gareey inaa waxaan la imaadid waxyaaba qaabkana naashnaashe marka haddaan sii wadno waxa ugu muhiimsan waxa marka qaybahan saan marka iskugu xirtid that is the literature review laakiin this literature review waxaa la isticmaali kara keliya marka thesis qoraysid iyo marka time ku hayo why haddaa u baahan tahay sourcigana waa social gareena ku noqo tartiib waqti qaado fahan videoga soo socdan waxaan ku sharxi doonaa sida loo qoro literature review haddaa u baahan tahay inaad joornaalo quality aad sareeyo aa wax ku daawacdo marka waxaan rajeynayaa muuqaalada idin caawiyaan markastana ha hilmaamin please videogan like dhah subscribe na channelka dhah si dadka kale u gaarto aan bulsho waxbarasho ku saleysan oo Soomaali ah aan halkan ugu dhisno waa mahadsantii haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelkan muuqaal ka daawato waxaan ka codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno haddiise aad doonayso in fariimo ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhino channelkan waxaad riixi kartaa sumada u eg gambaleelka ee ku taala dhanka midig ee subscribe mahadsanid